Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Sacuudiga ay dowladda Soomaaliya ku cadaadinayso sidii ay xiriirka ugu jari lahayd Qatar. Warar aan ka helnay ee lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhaqaale Soomaaliya uu Sacuudiga u ballan qaaday uu dibdhac ku imaan karo haddii ay Soomaaliya mowqifkeeda ku adkaysato oo aysan Sacuudigu taageerin. Wasiirada ka socda dowladda Soomaaliya ayaa ka soo noqday safar ay ku tageen Sacuudiga, waxaana la sheegay inay la kulmeen oo kaliya agaasimayaal halkii markii hore uu qorshuhu ahaa inay la kulmaan wasiirada dhigooda ah ee Sacuudiga. Haddaba safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle ayaa goor sii horeysay khadka telefoonka ee Sacuudiga ugu warramay wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan. Arrinta ah in dadka ay la kulmeen mas'uuliyiinta iyo arrinkan ku shaqada lahaa ay la kulmeen waa run. wasiiro aanay arag, laakiin waxaa haddana run ah in qoondadu aanay ahayn wasiiro inay la kulmaan ay ahayd dad oo wasaaradaha ay ka masalan wafdiga wasiirka duulista hawada ku jiray waxaa la kulmay Saudi Airline iyo duulista hawada Sacuudiga dadka socda ayaa la kulmeen khubaraha waxaas dhinaca kama muuqdaan nidaamka iyagu yaqaaniin Sacuudiga habdhaqankooda. warkan soo gaaray wuxuu sheegay in wasiiradii kale ballansan aanay la kulmin oo Sacuudigu ka cadhaysanayay go'aanka Soomaalida, taasna ay keentay in agaasimayaal la kulmo. adiguna waad xaqiijinaysaa in agaasimayaal la kulmay. marka inta shirarkan ay socdeen wasiiradan Soomaalidu meesha joogeen, ma jirtaa markaa Sacuudigu ama saraakiishan lala kulmay wasiirada Soomaalidu la kulmeen in Soomaaliya loo sheegay in ay xiriirka u jaraan Qatar? dowladda Sacuudiga aragtida ay ka qabta arrimaha iyaga iyo Qatar dhaxay wafdi daftar rasmi ah. wafdigana Muqdisho ayuu tagay, madaxweynaha ay wada fadhiisteen. waa run in Sacuudiga aragtida uu ka qabay arrintan iyo arrinta Soomaaliya dowladda Soomaaliya ka qabtay aragtida si kala gedisnaatay, laakiin markii Sacuudi la isku yimid mar laba lagama naqaashin arrintaas iyada ah. wararkan soo gaaraya way ka duwan yihiin saacad safiir sidaad sheegaysa, oo wararka aan helayna waxaa kamid ah in xitaa Sacuudigu lacagtii 50 milyan ahayd madaxweyne Farmaajo waqtigii uu tagay uu ballan qaaday inay dhici karto in hakadu ku yimaado ama ay la noqdaan iyagoo ka cadhaysan go'aanka Soomaalida. arrinka wax ka iraahdo fadhiga anaga aan fadhinay, arrinka xoolaha waa lagu soo hadal qaaday, waxayna noo sheegeen inay dabagalayaan oo meel marinayaan arrinka 50 milyan ah. arrinka kelimada anagu aan maqalnay oo meesha wada fadhinay oo wafdiga wada dhageysay wafdiga nooyin markaan weydiinay sidaa bay nagu yiraahdeen. waxaan goobjoog u ahaa oon dhageysanayay oon wafdiga uga mid ahaa iyadoo la weydiiyey, iyaguna ay yiraahdeen arrinka waanu dabagalaynaa. arrinka 50 milyan hadda arrin iyagu inay soo wareejiyeen ay sheegeen waaye, meel maritaankiisi iyo wixiiba un laga aadahdahay. problema kale ma aanu jirin, mana naloo sheegin annaga. waa tahay Sacuudiga Soomaaliya waxay u direen wakiil bay u direen, madaxweynuhu la soo kulmay. mowqifkii Soomaaliyana dabcan way ku qanci waayeen, waanad ogtahay sidaadna ka dhawaajisay inay niyad-jab kala kulmeen halka iyo qudhooda. waxaa jira warar sheegaya inay dhici karto in wasiirka khaarijiga ee Sacuudigu dalal u marayo Soomaaliya ay ku jirto oo uu madaxweynaha Farmaajo la kulmo. warkan maqlayo oo ay dhici karto in Sacuudigu warkama dambaysta ay Soomaaliya u sheegaan oo ay leeyihiin ama anaga nala jira ama kuwa kale la jira, oo go'aankaasina uu yahay dhinaca go'aan ka adag. ma jirta arrintaas maxaa ka jira oo ka maqashay adigu? weli arrinka ma hayno. dowladda Sacuudiga inay wafdi kala dirayso warka ah ma hayno, nama soo gaarin. laakiin xiriirka labada dal waa ay dhici kartaa in had iyo jeer labada mowqif arrintan ku aadan in la isu soo dhaweeyo dowladda Sacuudiga ay ka shaqeyso, dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso. runtii xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga u dhaxeeya ma jiro xiriir u dhow oo Soomaaliya iyo wadan Carbeed u dhaxeeya. marka Sacuudiga ma dhici kartaa marka in maadaama culays uu saarayo Soomaaliya inay xiriirka u jarto Qatar, intaasi ay ugu dambeyn suurowdo ma dhici kartaa oo taasi noqoto mid Soomaaliya ay raacdo? haddee walaalow xiriirka labada dal iyo dal kale xiriirka lala yeelanayo waa waxa arrin ka sarreyso, laakiin kaliya waxaan ogahay rabitaan xoogan oo labada dhinacba ka jiraan in xiriirkii sooyaalka ah oo muhiimka ah oo halbowlaha ah oo Soomaaliya Sacuudiga u dhexeeya inuu sii jiro, lana sii xoojiyo wixii culays ku yimaadaan laga xaliyo. laakiin go'aanka ay dowladdu qaadanaysa hadda waa arrin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baraha wasiirada iyo dadka siyaasadda Soomaaliya hoggaanka ka ah arrin u taalla waaye. kaasina waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalka Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelle oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.